السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دوادا خيارة شرفت iyo qiimaha leh waa idin soo dhaweynaya soo dhawaada barnaamijkii Minas Health. maanta barnaamijkeygii wax aan la yaabay maasha Allah tabaaraka Allah oo aad iyo anfacay oo aan uga helay oo intaan sawir ka qaaday oo aan idin soo dhigay gacmahaas ay u jeedaan waa gacmahayga oo runta ah. ما شاء الله تبارك الله gacmahaygu awal way madmadoobayeen waxay lahaayeen laalaab ayay lahaayeen darayna way ahaayeen marka waxaan isku dardaray oo guriga ii yaalo oo cunto ah maasha Allah wax aan kiimika ahayn oo natural ah oo aan cunno ayaan maartay 2 week isticmaalay oo gacmaha ku isticmaalay maasha Allah tabaaraka Allah markaan arkayna waxaan isdhahay maasha Allah tabaaraka Allah saaxiibadaada walaalahaaga Soomaaliyeed adduunka jooga maasha Allah si ay iyaguna uga faa'iideystaan u duub oo u dir oo la qaybso waad ka heli doontaan waa wax jikas kasta oo Soomaaliyeed yaala ma aha wax maartay oo aan la helaynin waa wax jikada noo yaala waa cunto waa wax natural ah wax natural oo isticmaashay oo gacmahaaga saas ka dhigay maasha Allah. Number 1 waa yaanyada kuuskuusan guduudan xataa ha ahaato yaanyada kale ee maartay yaanyo buurbuur oo waaweyn yaanyadu yar adiga nooc kasta yaanyo waa inay karsanaataa bis way guduud ahaataa waliba mid aad u karsan ayaaba kasii fiican miday kasii guduudan tahay ayay kasii fiican tahay. Number 2 waa huruuda guri kasta Soomaaliyeed way taalaa huruuda waa cuntada lagu karsadaa caafimaadkeeda lama soo koobi karo waa anti inflammation xataa boog hadaad leedahay ama aad infection aad leedahay maasha Allah tabaaraka Allah aad bay ugu fiican tahay. huruuda waa wax natural iyaduna iyadoo shiidan ayaa la helaa hadaa rabto intaad soo gadato iyadoo maaragtay adaa shiidan kara guriga ku shiidan kara hadii kale iyadoo shiidan ayaad soo gadan kartaa oo diyaarsan. marka waxaad u baahan tahay yaanyadana waad shiidaysaa hadii aad mashiin haysato mashiinka maaragtay lagu shiido ayaad ku shiidaysaa. Number 3 waa bariiska cad bariiska waa inuu noqdaa mid cad ma aha brown rice kan oo brown ka ah ma aha waa bariiska cad bariiska waa inuu cadaadaa macnaha ma sameynayso inuu magacyadiisa kala duwan waa just bariis oo bas inuu cadaado bas waa shiidaysaa isaguna hadii uu ku yaalo mashiinka lagu shiido mashiinka heelka lagu shiido ayaad ku shiidan kartaa ama mooyahaad ku tuman kartaa. marka waa yaanyo huruud iyo bariis marka yaanyadana waad shiidanaysaa hadaad rabto gooni ayaad u shiidaysaa aniga iyagoo diyaarsan oo bariiska isagoo diyaarsan aan soo gatay laakiin yaanyada waan shiiday goonigeeda ayaan u shiiday huruudda ayaan ku daray markaas kadib bariiska ayaan ku daray isagoo shiidan saddexdaas ayaad isku qasaysaa si fiican ayaad isu dhex gelinaysaa. yaanyada markaad shiido adaa arki doona biyay leedahay iyadaaba qoyaan badan leh marka iyadaaba maaragtay wax kale uma baahnid inaad ku darto waayo bariiska iyo huruudda yaanyada ayaaba ku filan hadii aad istiraado wax yar biyo ayaad u baahan tahay biyaha ku darin waxaad ku daraysaa yogurtuna waa waxaad ku daraysaa tan oo fadhida ee adag ee faatka ah yogurt way kala tahay mid baa faatka laga bixiyay midna waa full fat marka tan full fat ka soo gado yogurta full fatka aad bay caafimaad ugu tahay skinka iyo xataa timaha aad bay caafimaad ugu tahay waxay siisaa moisture wax la dhaysiisaa qoyaan bay siisaa marka waxaad soo gadanaysaa yogurta full fatka ah ayaad soo gadanaysaa hadaad istiraado marka aad isku qasto yaanyadii iyo huruudii iyo bariiskii isku qasto ood istiraado xoogaa way yara adag yihiin ayaad waxaad ku daraysaa yogurtii oo full fatka ahayd oo in yar ayaad ku daraysaa waad ku jilcinaysaa xoogaa waxay ku xiran tahay inta aad qasto uma baahnid hadii aad maaragtay iyagaaba ku filan sometimes uma baahnid yogurt hadii aad u baahato waa yogurt markaas ku qasanaysaa. kadib waxaad sameynaysaa markaad alaabtii isku qasto oo si fiican ay isku dhex galaan waxaad sameynaysaa
gacanba goonigeed ayaad si fiican ugu masaajeynaysaa in ku filan ayaad ku shubanaysaa gacanta si fiican ayaad ugu masaajeynaysaa faraha gooni ilaa iyo gacanta kor inta aad gaarayso si fiican ugu masaaje adiga ilaa iyo 3 to 5 minutes hal gacan 3 to 5 minutes ayaad masaajeynaysaa alaabta si fiican ugu masaajeynaysaa kadib gacanta kale saas oo kale iyaduna 3 to 5 minutes haddii aad ka badin kartana waad ka badin kartaa laakiin 3 to 5 minutes is enough kadib markaad 5 minutes iyo 5 minutes already 10 minutes ayaaba joogtaa gacanta iyo 5 minutes ay qaadanaysaa marka haddaad sugi karto another 5 minutes ayaad sugaysaa adigu ilaa 10 minutes another 10 minutes ay isku noqonaysaa so iyagaaba waxay gaaraysaaba 15 to 20 minutes intaas waa enough waxaa samaynaysaa kadib waa iska dhaqaysaa biyo caadi aad ku dhaqaysaa markaad si fiican iskaga dhaqdo ayaad waxaa samaynaysaa shukumaanka intaad soo qaadato ayaad ku qalajinaysaa xoogaa aadna ha u xoqin laakiin ku qalaji kor ka saasaa ilaa ay gacmihii ay dry ka noqdaan xoogaa markay gacmaha dry ku noqdaan ayaad waxaad samaynaysaa coconut oil ayaad ku masaajeynaysaa ama olive oil ama saliidu saytuun ayaad ku masaajeynaysaa kadib maasha allah laakiin waqtiga ugu fiican oo aad samayn karto waa intaadan seexan ka hor waayo haddii aad subaxii aad samayso oo haddana alaab dib u dhaqdo ama howl kale aad sii qabato wixii maaragtay macno ma samaynayaan waxa waqtiga ugu fiican oo aad samayn karto waa intaadan seexanin ka hor ayaad samaynaysaa alaabtaas ayaad maaragtay ku masaajeynaysaa gacmaha waad ka dhaqaysaa coconut oil ayaad marsanaysaa ama saliid qumbe ayaad marsanaysaa ama olive oil saliid saytuun ayaad dusha ka marsanaysaa maasha allah tabaarakallah kadib waa iska seexanaysaa subaxii maasha allah waad dareemaysaa gacmahaaga waxay noqonayaan gacmo baby ah cunug hadda dhashay oo kale jilac maalinta koowaad ayaad dareemaysaa marka waxaad samaynaysaa adiga intaad samayn karto wiigii 3 jeer 4 jeer 5 jeer intaad rabtaad samaysan kartaa alaabta faranjeerka intaad gashato ama fridgeka aad gashato ayaad ku dhaafan kartaa oo haddana everyday waad isticmaali kartaa so adigu waxaad isticmaali kartaa 2 days aniga halka mar aan sameeyay 2 beri aan isticmaalay haddana waan sameynaya haddana 2 beri kale aan isticmaalay adiga ilaa iyo 2 beri is enough more than 2 beri alaabta way halaabaysaa 2 beri ka badan alaabta maaragtay mid cusub waa inaad samaysataa aniga kuley saasaan sameeyey marka intaad marsan karto weekii 2 jeer 3 jeer 4 jeer intaad marsan karto haddaad marsan karto everydayna waaba kasii fiican laakiin intaadan seexan ka hor waayo haddii aad maalintii adoo howl haya aad wixii aad intaad masaajada iyo wixii aad ku masaajayso oo iska dhaqdo oo howl ku qabato oo alaab ku dhaqdo oo waxa laga yaabaa inaan wixii waxba kuu tarin laakiin intaadan seexan ka hor ayaa ugu muhiimsan aniga intaan seexanin ka hor ayaan isticmaalay kadibna maasha allah gacmahayga waa ujeedaan maasha allah quruxdaas maasha allah tabaarakallah waa ka heli doontaan insha allah markaad isticmaashaan oo aad ka heshaan commentiga kusoo qora oo nala soo socodsiiya maasha allah waad ka heli doontaan I'm sure 100%. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.